maadaama October-ka hadda uu furmay DP Lottery-ga inaan kula wadaago sida ugu fudud ee aad ugu xareysan kartid DP Lottery-ga sanadkan website-ka ay tahay inaad ka xareysatid maadaama ay jiraan website badan oo fake qaarkood yihiin maxaa lagu gartaa website-ka saxda ah sawirada aan isticmaalayo cabiradooda iyo waxyaabaha dheeraadka ee leega baahan yahay ayaan rabaa in halkan aan idinku sheego sidoo kale sawirkii aad soo gashay sida ku xaqiijin lahayd inuu sax yahay inuu khalad yahay ama ay wax ka khaldan yihiin ayadana waa kula wadaagi doonaa hadda ku soo dhawaad muuqaalka assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada magacaygu waa Cabdi Xuseen Cabdi Bulsho sanadkan 2024 October waxaa hadda furmay DP Lottery-ga 2026 haddaba waxaan rabaa inaan idila wadaago haddii ila yiraahdo DP Lottery-gan ama baqti nasiibkan Mareykanka lagu aado kumanaan dad ahna ay ku aadeen oo ka soo kala jeeda qaarada kala duwan sida Africa, Europe, Asia haddaba marka waxaan rabaa marka maadaama October-ka hadda uu furmay DP Lottery-ga inaan kula wadaago sida ugu fudud ee aad ugu xareysan kartid DP Lottery-ga sanadkan website-ka ay tahay inaad ka xareysatid maadaama ay jiraan website badan oo fake qaarkood yihiin maxaa lagu gartaa website-ka saxda ah sawirada aan isticmaalayo cabiradooda iyo waxyaabaha dheeraadka ee leega baahan yahay ayaan rabaa in halkan aan idinku sheego sidoo kale sawirkii aad soo gashay sida ku xaqiijin lahayd inuu sax yahay inuu khalad yahay ama ay wax ka khaldan yihiin marka ugu horeyso si aad website-ka aad u tagtid aad rabtid inaad ka xareysatid waxaa shardi ah in halkan oo kale intaad tagtid aad ku qortid DP program hadda kulli aan ugu soo qormaya waa DP program .state.government oo ah .gov haddaysan raacsaneen waxaa waaye waxba kama jiraan marka DP program.state.gov 2026 ayaan rabnaa in anaga internet dheheena halka markaa dhaadid waxaa ku soo bixi doona dhammaan waxyaabahan hadda u jeedidba waa DP Lottery oo magac badan wato US Embassy .gov waxyaaba badan waa aad midka aad qaadanayso waxay tahay US Department of State ku qoran tahay kaasi oo ah ama inta ka fiirisid waxaa waaye DP Lottery .state.gov okay kan kor ayaa qaadanaysaa marka midkan kor aad qaadatid okay marka midkan kor aad qaadatid si u jeedid waxaad soo galnay website-ka saxda ahaa ee laga xareynayay DP Lottery-ga hadda halka marka imaatid instruction ama sharci ayaa halkan ka jiro haddii hadda halka aad firtid waxa lagu leeyahay fadlan akhri DP Lottery-ga 2026 sharciyadiisa si fudud u akhri ayaa lagu dhahay haddii hadda halka aad fiirisid waxyaabo badan ayaa ku arki doontaa oo ah tusaale ahaan marka inta fiirisid waxaa ku qoran important notice-kan ku qoran waa Visa Lottery-ga Soomaha okay good hoos u jeedno instructionada halkan marka waxaa ku qoran instructiono ay tahay in akhrisid English u baahan tahay waa kana DVD wuxuu kugu soo dagayaa maxaa la jiray PDF ahaan hadda inta ka kilo ku dhayd si aad u akhrisatid xogaha iyo waxyaabaha laga rabo kulli aad soo tasdigaray waa sida oo balagarin kartid halkan waxa waaye process-ka ama DP Lottery program-ka website-keega inta aad bilaabin markii halkan aad soo gashid sidoo kale halkan haddii aad u baahan tahay waxa ku qoran photo examples ama assemblies-ka ama qaabka ay sawiradaada noqon karaan hadda kaliya ku dhaadid waxa arkaysaa sawiradaas ay tahay in laga rabo waa kana acceptable photo ama sawirada laga rabo nooc yihiin waa kuwanaas u jeedid waxyaabo badan laga rabaa okay halkan hadda imaatidna waxyaabo badan oo khalad oo la ogoleena jiro sidana kor fiiri sidoo kale sida in shadow badan uu ku jiro kale sida in maxaa la jiray halkaas uu mugdi kaaga jiro kale waxyaabahaas oo dhan ayagana lama ogolo sidoo kale in size-ka iska saxid ayadana waa very important okay taas aan marka aan ka gudubno aan halkan qaybtan aan ku laabano inta ma ku laabano inta aanan macnaha maxaa la jiray habka loo xareeyna aan idin tusin waxaan rabaa sidoo kale inaan jeegareeno sawirka inuu saxsan yahay inuu karo u baahan yahay inuu wax ka khaldan yihiin haddii hadda qaybtan ay imaatid oo aad meeshan aad tiraahdo digital image requirement hadda ku dhufto wuxuu ii furi doonaa qaybtan ayuu ii furi doonaa qaybtan markuu ii furo halkan aad u jeedid waxaa lagu leeyahay US Department of State photo toolkeeda waa kana marka waxyaabahan ayuu kaaga baahanaya okay si aan u xaqiijino marka annaga waxaan sameynaynaa waxaan leenahay start photo toolka sawirka ayaan rabnaa inaan ogaano inuu saxsan yahay iyo in kale wax ka khaldan yihiin qaybtan hoose ayaa tagaysaa kadibna waxaa leedahay just photo kadibna hadda ani sawirkan oo kale ayaan soo qaadanayaa inuu saxsan yahay in kale ayaan rabaa inaan ogaano halka marka aragtid wuxuu tig saaray wuxuu dhahay footadaada uma baahan inaad corobin aad ku samaysid photo dimensionkaadana waa 600 by 600
okay waxaa jira website kale oo asagana aan ku karno ah website-kan greencard.photo-check.com ayadana sidoo kale inta hadda kale aan sameynaa okay control v wax kasta waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose ee description-ka ayaan soo dhigi doonaa kadibna waa kana asagana halkan ayaan rabnaa inaan ka fiirino upload the photo sawirkaa soo geli marka sawirkaa soo gelisid kadibna waxaan leenahay bal aragno wuxuuna tusi doonaa ama waxir ka bacdi jagaran doonaa sawirkan xaaladiisa soo jeedid great ayuu ku dhahay your photo you macnaha wuxuu ku dhahay great you got a photo to continue below macnaha footadaada wuxuu ku leeyahay waa best ama okay wax qalada ma laha okay kana soo jeedid must be required inuu hada aspect ratio 600 waa inuu noqdaa minimum size kiisa wax kasta jaga saan soo jeedid programkan marka arkaysiin waa inaa ku jeegeliso sawirkaaga wax kasta aad ku jeegeliso okay soo ma jeedid wuxuu ku leeyahay you can smell in American ready to continue below marka already sawirkaada iyo waxaas inay saxsan yihiin sidaas ay ku waan kartaa taas haddaan kaga soo gudubno sawirka iyo waxyaabaas inay sax yihiin hadda waxaan rabnaa inaan ogaano qaabka loo xareeyo DV lottery-ga ama baqtiyaasirka lagu aado Mareykanka marka website kasta soo gashid marka ugu horeyso waxaa leedahay qaybtan oo big entry ay ku dhufanaysaa big entry-ga marka ku dhufatid halkan waa meesha ugu horeysay ee wax kasta ka bilaabanayeen waxaa gelinaysaa character-kan halka ka muuqda ayaa gelinaysaa haddii waaweyn yahayna waaweyn ka dhigaysaa haddii uu yahay yar yar ka dhigaysaa hadba wuxuu yahay ayaad ka dhigaysaa okay mn6 okay inta ma haddii uu ku dhibane mar kale waxaa dhigi kartaa ii bedel okay samida dheena samida ka dhaano kulli hadda anam xareeno laakiin sabal ahaan ayaan ku tusi doonaa haduu la yiraahdo okay macnaha magacaada awowga ayaa inta gelinaysaa halkaana magacaaba ayaa gelinaysaa halkaana magacaabaha gelinaysaa okay waa sida caadi u qoran tahay haddii aad male tahay male ayaa gelinaysaa haddii aad dumar tahay ama dhadig aad tahay waxaa gelinaysaa female halkaan markaa imaatidne waxaa samaynaysaa qaybta waxaa gelinaysaa maalinta aad dhalatay maxaa ka wadaa bisha aad dhalatay tusaale haddaad dhalatay April May June tanna maalinta aad dhalatay 5 6 7 10 waxay tahay halkaana sanadka ayaa gelinaysaa qaybta markaa imaatid halkaan waxaa waaye waa city waa meesha aad ku dhalatay waa magaalada aad ku dhalatay ayaa halkaan aad gelinaysaa magaceeda qaybtan hoose markaa imaatidne waxaa samaynaysaa waxaa ka dooranaysaa wadanka aad ku dhalatay Soomaaliya ayaa ka dooranaysaa midowgo sharciyadan haddii passport aalada ama aalada xogtaada iyo waxyaabahaada yeesan iskhilaafin magaala aad ku dhalanin ha sheeganin magaala aan ku qornayn passportka ama sharciyadaada ama iskuulaadka waxyaabaha aad ku dhigato shahaadooyinka ha macnaha maxal jira isticmaalan haddii mar wadanka halkan Soomaaliya aad gelisid qaybtan uma baahnid laakiin marba hadda inta gelisid wadankaada hadda inta gelisid aad ku dhalatay uma baahnid macnaha maxal jira in halkan wax ka bedesho saana ku dhaafaysaa kadibna qaybta marka imaatid waxaa rabtaa marka inaad sawirkii aad soo gelisid sawirkii aad juice leedahay kadibna sawirkii ayaa soo gelinaysaa okay intaas aad gudubno halkan waa iska optional ayada waa in key optional waaye oo ka tagaysaa halkan waxay gelinaysaa addresska tusaale taleexa degan tahay tan waxay gelin kartaa waa city ama waa magaalada waa townka waa magaalada Muqdisho kale tusaale halkan waa districtiga waa degmada Hodan Soomaaliya ama waxaa dhigi kartaa maxaa dhigi sheegay province-ga state-ka gobolka ayaa halkan geli kartaa waxyaabaha ku qoran districtiga ama country-ga ama waxyaabahaas ku qoran kartaa da districtiga sanaf oo ah agelisid macnaha hal dilay gobolka Banaadir oo kale agelisid oo okay inta zip code-ka ayaa laga rabaa halkan country-ga ugu dambeyn country-ga ayaa laga rabaa inta ma soo gudubtid qaybtana oo maaw qaybtan waxa waaye country where you live today waa meesha ku nooshahay haddii aad Soomaaliya ku nooshahay Soomaaliya ka doorane haddii aad Kenya ku nooshahay Kenya ku doorane meesha aad ku nooshahay ayaa ka doorane halkan waa iska macnaha maxal jiro optional laakiin taleefankaadan waa gelin kartaa waan optional dhimalaan waa ka tagi kartaa daa u baahan tahay okay inta waxay gelinaysaa emailkaaga ayaa gelinaysaa mar labaad ayaad gelinaysaa waa emailkii hadhow xogta lagu soo dir lahaa haddii uu DV lottery-ga uu ku soo baxo qaybtan hoose ima waa highest education of way ayaa gaartay macnaha haddii aad primary aad tahay haddii aad high school oo no degree aad tahay haddii high school degree aad tahay haddii vacation aad tahay haddii aad tahay university course aad qaatay haddii aad qaatay macnaha maxal university degree haddii aad qaatay wax aad qaatay ayaa halka gelinaysaa
qaybtan hadda oo imaatid waa current stat macnaha qofka xaaladiisa oo markaas taagan waaye haddii aadan guursanin unmarried haddii aad guursatay ayadana waa ka shaqo badanta ogow haddii aad guursatay qof oo citizens oo USA ah haddii aad guursatay sidoo kale kana dooranaysa haddii aad divorce tahay oo lagu soo furay oo gabadh aad tahay ama aad wax soo barto nin aad tahay sidoo kale widow hadda too laga dhintay oo islaan ay ka dhimatay ama adiga macnaha hadii naagta laga dhintay waa la gelin karaa waxyaabaha dhan aad dooranaysaa marka single-ka ayaa u fudud kuwan kale hadhow page kale ku furi doona oo ah qofka shakhsiyadiisa iyo sawirada ciyaalkaadii waxaas inuu dib ku weydiiyo inta aan kasoo gudubno halka hadda imaatid uma baahan single hadda tahay jir dar inaad qortid sababtoo iyo ah single kadibna waxaa leedahay continue ayaa leedahay intaa markaa samaysid sidaas ayuu kugu dhammaanayaa laakiin haddii markaasi aad dooratid tusaale ahaan married haddaad dooratid oo qof soo guursaday aad tahay aad dooratid qof macnaha hal jiri tusaale aad guursatid ama dooratid ama divorce aad ilma aad leedahay page kale ayaa ku furmi doono pagekaas ayaana macnaha hal jiri ilmaha iyo inta ay yihiin iyo sawiradooda iyo waxyaabahaas lagu weydiin doonaa si guud marka waa intaas marka aad DP Lottery-ga aad macnaha maxaa la jiri rabtid inaad xareysid muhiimadda koobaad waxaa waaye inaad sawirka iska saxdid muhiimadda labaad waxaa waaye inaad meesha aad ka xareynaysid meeshii saxda ahayd ay noqoto ayaa muhiim ah saddexaadna waa in xogtaada iyo xogta aad meesha gelinaysid iyo xogta hadhow sharciyada kugu qoran ay isla yihiin emailkaadana la socotid kulley markii oo macnaha maxaa la jiri aad buuxishid waxaa arki doontaa ama uu ku siin doonaa code of verification ah ayuu ku siin doonaa kaas oo marka macnaha maxaa la jiray hadhow aad wax ku jeegaraysan doontid ama aad ku maxaa la jiray samaysan doontid tusaale verification card number ayuu ku siin doonaa oo hadhow aad ku jeegaraysan doontid marka la gaaro xilliga la jeegareynayo inuu ku soo baxay in kale kaasna waa save garaysan doontaa kulli hadda aniga macnaha maxaa la jiray maadaama hadda aan xareynaynin oo hadda aanan waxyaabahaas buuxinaynin oo xareynaynin ima suurtagelaysa inaan hadda aan sameeyo laakiin insha allahu tacaala qaybta marka aan hadhow ama qof xareynayo ama ani ahaanba aan xareynayo ayaan qaybta saxda ah iyo sida aan u maro duubitaana ayaan si recording aan kusoo samayn doonaa insha allah intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa casharkeennii aan kaga hadlaynay DP Lottery-ga sida loo xareeyo iyo waxyaabaha shuruudaha la isaga baahan yahay tani inta kulmi doona casharadeena xiga insha allahu tacaala nabadiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu